ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya ee caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay doorashada Jubbaland iyo xaaladda dowladda federaalka Soomaaliya. Qarax khasaare geystay oo ka dhacay Boosaaso. Trump oo Israa'iil ka dalbaday in ay ka hortagto qorshe ay damacsan tahay Ilhaan Cumar. Korneel Carro oo aqbalay in uu la heshiiyo dowladda Somaliland. Djibouti oo Kenya ka diiday in ay uga tanaasuso kursi lagu dhibaateyn karo Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay beedmo. markaani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dagaal siyaasadeed kula jira Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska ayaa Israa'iil ka dalbaday in aan loo ogolaan qorshaha ay damacsan yihiin Ilhaan Cumar iyo gabadha kale oo ka tirsan Koongareeska dalkaasi Mareykanka ee Rashida Tlaib. Trump ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu in uusan qaabilin Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib oo qorsheynaya in ay bishani booqasho ku tagaan magaalada Qudus ee dhulka reer Falastiin. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in Ilhaan iyo Rashida labaduba ay ka mid yihiin cadowga Israa'iil sida uu hadalka u dhigay. sida oo kale wuxuu ku eedeeyay in had iyo jeer ay ka shaqeeyaan arrimo ka dhan ah jiritaanka Israa'iil. ugu dambeyn Trump ayaa kula taliyay Netanyahu in labadani xildhibaan laga mamnuuco gudaha dalka Israa'iil. dagaalka u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo labadani gabdhood oo isku dhinaca ayaa soo shaac baxay wixii ka dambeeyay doorashadii Mareykanka ee 2016. Suldaan Axmed Cismaan oo ah gudoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta jabhadda uu hogaamiyo Korneel Siciid Cawil Jaamac, Korneel Carre iyo maamulka Somaliland ayaa ka warbixiyay meesha ay marayaan wadahadalka u socda labada dhinac. Suldaan Cadde Guude ayaa sheegay in dadaalada ay wadaan ay ka gaareen guulo ku aadan in la soo afjaro dagaalka ka dhaxeeya. sidoo kale suldaanka ayaa carabka ku dhuftay in Korneel Carre uu aqbalay heshiiska isla markaana ay sugayaan kaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo haatan dalka boqortooyada Sacuudiga sanadkani ugu maqan gudashada acmaasha xajka. ugu dambeyn Suldaan Axmed Cismaan ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka taagan gobolka Sool si ay dadka deegaanka uga helaan nabad waarta. Korneel Carre oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada Somaliland balse ka goostay maamulkaasi ayaa ku dhawaaqay jabhad la magac baxday Dulmidiid, taas oo marar badani weeraro ku qaaday ciidamada maamulka ee ku sugan gobolka Sool. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada badda ee maamulkaasi. saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa soo gaaray meesha ay waxu ka dhaceen, mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi. 4 bishan ayay ahayd markii bartamaha Boosaaso uu ka dhacay qarax noocan oo kale ah, kaas oo lala eegtay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Puntland Shire Xaaji Faarax, kaas oo ka badbaaday miina lala eegtay gaarigiisa. Djibouti ayaa ka biyadiiday in ay Kenya kaga tanaasusho xubinada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay, sida uu ku soo waramayo wargeyska afka dheer ee Daily Nation. dalalkani ka wada tirsan geeska Afrika ayaa aad ugu loolamaya jagadani oo la filayo in golaha guud ee UN-ka uu codeeyo bisha June, iyadoo codbixinta ugu dambaysa loo mudeeyay 21 Agosto. dowladahani ayaa waxay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay oo ay ku hananayaan xilkaasi aadka u muhiimka ah, iyaga oo taageero weydiisanaya wadamada ay xulafada yihiin ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. guulaystaha xilkani ayaa wuxuu u baahan yahay inuu helo cod gaaraya 3 meelood 2 dalool oo ah wadamada qaybta ka ah ururka ay ku midaysan yihiin dalalka dunida. midkood Kenya iyo Djibouti dhinacii ku soo baxa xilkani ayaa wuxuu golahaasi xubin ka ahaan doonaa inta u dhaxaysa 2021 ilaa iyo sanadka 2022. golaha ammaanka qaramada midoobay uguna awood badan oo UN-ka ka tirsan ayaa ka kooban 15 xubnood oo 5 ka mid ay yihiin kuwa joogta ah, halka inta soo hartay la soo doorto 2 sano hal jeer. xubnaha joogtada ah ayaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska ayaa waxay haystaan awood dheeraad ah oo la yiraahdo codka diidmada qayaxan. faa'iidooyin dheeraad ah ayay leedahay ka mid noqonshada golahani ayaa waxay ka mid ah jaangoonta
siyaasadda nabadda iyo ammaanka guud ahaan caalamka. Kenya ayaa doonaysa in ay xubinada golaha ammaanka u adeegsato fursad ay golaha uga dhaadhiciso in ay taageeraan mowqifkeeda ku aadan in ay wadahadal lagu dhameeyo muranka badda kala dhexeeya Soomaaliya, isla markaana Soomaaliya ay ka laabato kiiska horyaallo maxkamadda caalamka ee cadaaladda ICJ. haddii ay Kenya ka mid noqoto 10 dal ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka, ma heli doonto awood ay ugu codeyso arrimaha muhiimka ah sida amniga. hase yeeshee ka mid ahaanshaha golaha ayaa u saamixi doona fursad ay taageero ku raadsato isla markaana qiil uga hesho in laga laabto kiiska maxkamadda. wararka aan ka helayno magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa sheegaya in si habsami leh ay socoto diyaar garowga doorashada lagu wado in ay bishani ka dhacdo magaalada xarunta ee Kismaayo. waxaa muuqata in wali uusan shaqaynaynin dadaalka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku doonaysay in ay kaga hortagto in doorashada ay dhacdo. Amisom ayaa loo go'aamiyay in ay la wareegto sugidda amniga magaalada iyo xarunta doorashada. arrinkaasi waxaa soo dhaweeyay dowlad goboleedka Jubbaland iyo beesha caalamka, inkastoo ay jiraan musharaxiin wada gudi doorasho oo ka baxsan midka maamulka magacaabay isla markaana diiday odayaasha dhaqanka iyo xataa isdiiwaangelinta. haddana dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku adkaysanaysaa in doorashada ka dhacdo Kismaayo kuna dhacdo waqtigii loogu talagalay iyo musharaxiinta hadda diiwaan gashan. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa dhowr qoraal ka soo saartay arrimaha doorashada Jubbaland iyada oo shaki gelisay aqoonsiga natiijada doorashada haddii la garab maro waxay rabto. arrintaasi oo loo arko faragelin qaawan. filla Soomaaliya waxay ka cadhaysan tahay in aynan doorashada Jubbaland u maamulin sida ay ka samaysay Koonfur Galbeed, haddana ay wax ku wado Galmudug. dowladda federaalka kuma qanacsana madaxweyne Axmed Madoobe iyo maamulkiisa. taa beddelkeeda waxa ay gadaal ka soo riixaysaa musharaxiin kale kuwaasi oo aan badankooda laga aqoonin ama wax shaqo ah aan ka qaban deegaanada Jubbaland. madaxweyne Axmed Madoobe oo ka tirsan musharaxiinta isdiiwaan geliyay ayay dadka deegaanka sheegayaan in uu kaga gacan sareeyo kuwa kale marka loo fiiriyo khibradiisa iyo horumarka uu deegaanka gaarsiiyay tan iyo 2013. mudane Axmed Madoobe wuxuu qabsaday Jubbaland iyadoo ay ka soo baxeen dagaal sokeeye kana jirin adeeg iyo nidaam dawladeed. waxa uuna ka dhigay dowlad goboleedka labaad ee ugu wax soo saarka dhaqaalaha iyo awoodda badan kadib Puntland. reer Jubbaland waxaan ogala yeeray doorashada Jubbaland hoolka guddiga doorashada Jubbaland. waxaan ogala yeeray inaan ka qayb galna dadka doorashada siday arrimaha u dhacayaan. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida ay wax u wadaan guddiga doorashada. waa wax lagu kalsoonaado weeye. dadka waxaa laga qaadaya imtixaam awal iyo aakhirba ah. imtixaamkaas oo waxbarashadiisa waxa ugu jiro Jubbaland, waxa ugu jiro federaalka iyo waxa wuxuu soo maray waxbarashadiisa iyo wuxuu ka qayb galay haatan ka hor. hadduu dembi ka galay waddanka asaas dembi ka gelin waa la weydiinayaa. urur diimeed inuu soo maray baa la weydiinayaa. wax kastaa la weydiinayaa. waa ku faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay annaga haddaan nahay odayaalka dhaqanka. maxamed cabdinuur afrax M Daalo.